السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبيال dhageystayaal daawadayaal waa mar kale iyo falaqayntii colaada ka aloosan deegaanka Tukaraq oo aan idin la socon siin doono anigoo ah Daadir Dalmar tan iyo markii ciidamada Soomaaliland ay soo buux dhaafiyeen deegaanka Tukaraq oo ay taariikhdu ahayd 8 bisha January ayaa iminka laga joogaa 3 isbuuc walina ay isku horfadhiyaan labada ciidan ka kala yimid labada maamul xilliga kadib ilaa maanta waxa socota dhiilo colaadeed iyo abaabul dagaal oo aad u xoogan inkastoo ay jiraan baaqyo nabadeed iyo waan ay ugu baaqeen beesha caalamka dawladda federaalka iyo dawladaha dariska ah balse labada dhinac midkoodna ma aqbalin oo waa ay ka dhaga adeegeen haddaba haddii aanu soo qaadano dhanka Puntland waxaa indhuhu qabanayeen generaalka Gaamuray ee General Siciid Dere oo ay ku dhaartaan nimanka Puntland dhinaca difaaca oo isagu horkacaya ciidamada Puntland sidoo kale generaal kale oo dhigiisa ahna waxay ka soo jeedaan dhinaca Soomaaliland haddaba haddii uu halkaasi ka dhaco dagaal lagu riiqdo maxuu noqon doonaa dhaxalka inkastoo qiimayn ama analyze la sameeyay ay sheegtay labada dhinacba waa Soomaaliland iyo Puntland ay yihiin labadooduba markii ay ugu liiteen xagga dhaqaalaha oo ay ku adag tahay xitaa muddo 20 cisho ah in ay dagaal wadi karaan laakiin waxay qiimayntu intaa ku dartay ciidamada Soomaaliland ee uu soo diray ninka loo yaqaano Muuse Biixi ee madaxda ka ah Soomaaliland in ay soo jareen masaafo aad u dheer ayna joogaan dad ama dhul ay ku nool yihiin dad aysan isku hayb ahayn oo qolada kale ee ka soo horjeeda ay ku doodayso inaga isku hayb ah inaga dhalasho wadaagna haddaba qiimaynta qaar waxay sheegtay ninka loo yaqaan Muuse Biixi mar ay kulmeen wakiilka qaramada midoobay ee Kaytin oo uu ku yiri in uu ciidamada ka celiyo meesha kula celiyo barahoodii hore ayuu yiri anigu taa iima cuntanto oo doorashada waxaan ku galay in aan soo xiro xuduudaha ay leedahay Soomaaliland qiimayntu waxay intaa ku dartay oo waliba ay aad u faahfaahisay madaxweyne Muuse Biixi ciidamada uu meesha keenay hadduu dib u celiyo wuxuu ku waayi karaa kursigiisa haddii dagaal dhaco oo meesha ay ku jabaana wuxuu ku waayi karaa aalad iyo saanad badan oo ciidamadiisu ay halka la tageen sababtoo ah bay'ada iyo goobta lagu dirirayo waa goob saacidi karta Puntland oo isla markiiba sida dhaqan iyo caado u ah Soomaalida in ay baashu isku bedesho tol iyo hayb iyo sidii caadada u ahayd Soomaalida